soo dhawaada daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha oo aan idinkugu soo gudbiyo wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta iyo suuqa kala iibsiga. Wararkan caawidin hayana waxaa ugu waaweyn Matthias Cunha oo ku biiray Manchester United, Dembele iyo Duu oo ku garaacay Rafinha iyo Yamal abaalmarinada ugu sareeya tartanka Champions League. Hal arin oo Bruno Fernandes ka hortaagan inuu ku biiro Al Hilal oo la ogaaday. Wararkaas iyo warar kale oo xiiso badan ayaan idin hayaa saaxiibayaal. balse marka hore muuqaalka like saar sidoo kalena nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid. Aan ku bilaabe Matthias Cunha oo si rasmi ah ugu biiray kooxda Manchester United. Manchester United ayaa si rasmi ah ula wareegtay weeraryahanka reer Brazil Matheus Santos Carneiro da Cunha oo saxiixay heshiis 5 sano ah oo lagu daray 1 sano oo ikhtiyaari ah. Soo bandhigidda laacibka ayaa weli hakad ku jira iyadoo aan la dhameystirin helitaanka fiisaha, waxaana si buuxda loo diiwaangelin doonaa marka uu ka soo laabto waajibaadka caalamiga ah. United ayaa kordhisay qandaraaska heshiiska ee laacibka oo gaaraya 62.5 milyan, taasoo la bixin doono muddo 3 sano ah. Cunha ayaa la filayaa inuu toddobaadkii mushaar ahaan u qaadan doono qiyaastii 200,000 oo pound. Cunha oo horey ugu ciyaaray Wolves ayaa noqonaya saxiixii ugu horeeyay ee tababaraha cusub ee Man United, Ruben Amorim. Waxaa la filayaa inuu door muhiim ah ka ciyaaro dib u dhiska kooxda Red Devils. Dhinaca kalena, Dembele iyo Duu oo ku garaacay Rafinha iyo Yamal abaalmarinada ugu sareeya tartanka Champions League. Kooxda Paris Saint-Germain ayaa guul taariikhi ah oo 5-0 ah ku xasuuqday Inter Milan ciyaartii kama dambaysta ahayd ee UEFA Champions League, taas oo ay hormuud u ahaayeen Ousmane Dembele iyo Desire Duu, kuwaasoo hantay abaalmarinada shakhsiyeed ee ugu sareeya tartanka. Ousmane Dembele ayaa loo doortay ciyaaryahanka xil ciyaareedka ee UEFA Champions League 2024-2025. Weeraryahanka 28 jirka wuxuu door weyn ka qaatay ololaha PSG isagoo dhaliyay 7 gool isla markaana caawiyay 1 gool intii uu socday tartanka. Saameyntiisa ciyaarta iyo awoodiisa hal-abuurka ayaa si weyn uga caawisay PSG inay ku guuleysato tartanka Champions League markii ugu horeysay taariikhdeeda. Desire Duu oo 19 jir ah ayaa isna loo doortay ciyaaryahanka daayirka ugu fiican Champions League xil ciyaareedkan. Ciyaartii kama dambaysta ahayd wuxuu ku soo bandhigay ciyaar cajiib ah isagoo dhaliyay 2 gool isla markaana sameeyay 2 caawin. Waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu daada yaraa ee 2 gool iyo caawin ka sameeyay finaalka Champions League. Intii lagu jiray tartanka, wuxuu sidoo kale dhaliyay rigooradii go'aamisay guushii ay ka gaareen Liverpool wareegga 16-ka. Ugu dambeyntiina, hal arin oo Bruno Fernandes ka hortaagan inuu ku biiro Al Hilal oo la ogaaday. Kabtanka Manchester United Bruno Fernandes ayaa la soo warinayaa inuu si dhab ah kaga fiirsanayo dalab qaali ah oo kaga yimid kooxda Al Hilal ee dalka Sacuudi Carabiya. Heshiiskan ayaa lagu qiimeeyay ku dhawaad 100